shaqalka quruxda layne shaanshaanudaga soo gaadhiyo naxliga xumoor ku sheeliyo sharaarad laga siifeeyo shaqalka quruxda layne shaanshaanudaga soo gaadhiyo naxliga xumoor ku sheeliyo sharaarad laga siifeeyo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhibkeediyo qiyaamahan shaqalka quruxda layne shaanshaanudaga soo gaadhiyo naxliga xumoor ku sheeliyo sharaarad laga siifeeyo shaqalka quruxda layne shaanshaanudaga soo gaadhiyo naxliga xumoor ku sheeliyo sharaarad laga siifeeyo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhibkeediyo qiyaamahan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا بوند داود الملك صنع داون سان حكومة تلفزيون كمان حبنا الرئي تي في كسر دوادة مرة كليه برنامج كنا سؤالها وديني ورعلنا هبين كان عاوا ومال قليه دم الديكوريشن أو إسبار برتيه كنا قلب كاللوجو قرحي جديد كا برنامج كهال كنا يو نقدر فرميا واحد نسوا عسنياني وأحمد علا داوشون أكثر وقتها داود كقريب قلنا يا دوني برنامج كنا كقريب قلنا برنامج كمان كان عاوا وحمال قليه wadamo decoration oo soo dejiya qalabka baabuurta lagu qurxiyo isbarbartiga wala lagu oranado magaca ku bilaabay ku soo dhow barnaamijka wadiinna wacin salaar rabadanta magacayga maxamed yaasiin aadan maxamed yaasiinow waxa ku weydiinaya su'aal barnaamijku wuxuu ku jira su'aalo diiniya kuwa taariikhiya iyo kuwa dhaqaneentaba marka waxaan ku weydiinayaa su'aal taariikhiya madaxweynihii Soomaaliya maxamed siyaad barre taariikhdii uu dhintay iyo wadanka uu dhintay waxa uu ku dhintay والله تلياني ولا تاريخه دي تلاقي ما قرني عبد المسين كقيب قلاص واسكو دي لكن سؤالك مو غلسن عادي دوما سنت وقت داود البرنامج كنا سؤالي ودينا ورعلنا ايaan wali dhaxda ka jirnaa habeenkan caawa xamaal galiyay damal decoration oo soo dejiyay qalabka isbaar baasiga baabuurta inaan ka baadayno ka qayb gal doonay walaal gorin barnaamijka soo dhawaada magaca ku bilaabaya magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Ibrahim Faarax oo su'aal baa ku weydiinaya su'aasha jawaabteeda dad ku guuleysato wax la saabaal marin uu bixiyay damal decoration barnaamijku wuxuu ku jiraa su'aalo dhaqana kuwa taariikhi iyo kuwa diiniyeentaba markan waxaan ku weydiinayaa su'aal dhinaca dhaqanka bilaha waxay u kala baxaan af Carabi af Soomaaliya af Ingiriis intaba bisha labaad ee guga af Soomaali maxaa lagu dhahaa bisha labaad ee guga وبريس ولا وبريس وبلي عربي وبلي سبوح كواس عربي نقوليان بش اللباد صين جوجا صومال واحد كنا نقول سوا عول وين عول بلنا بش ولا وقررنا ضم معاكم لا بيكسروا برامج صالح ريتي بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي وانا معانا عبد الله برنامج كنا نكسروا مع واحد كويدينيا برنامج كنا سؤال تاريخي كويدينيا كورا قناة تبع مركو واحد كويدينيا سؤال تاريخي madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre taariikhdii uu dhintay iyo wadankii uu ku dhintay wallahi ma garto wallahi aadu ma seen daawadaha si su'aasha ku muguleysan waa ma santay wata daawadayaal wali barnaamijkeena su'aalaha rabadaanta weydiinay oo ricinaayaan dhuxbartan kaga jirnaayo habeenkan caawa maal galiyay damal decoration oo soo dejiyay qalabka isbaar baartiga baabuurta inaan ka baadilo joogo walaal goran magaca magacaygu waxa weeyaan Cabdirasaaq Axmed Abdullaahi waxa jirta boqortooyada Holland abwaan hadraawi waxay gudoonsiyeen bilad sharaf abwaankii ugu wanaagsanaa abwaanada Soomaalida magaalada Hargeysa ku gudoonsiyeen sanadkii baan ka rabnay bismillaahir rahmaanir rahiim su'aasha haddii aan isku dayo jawaabteeda waxaan maleynayaa sanadkaas inuu ahaa 2016 aadu ma siiyay 3 sano kaliya uu ku diray 2013 bayd jawaab sax ah ma santay wata daawadayaal barnaamijkeena ayaan waxbarta ka jirnaaye haddii ninka meel joogo walaal goran magaca Cabdi Ibrahim Ali wala dhawr عبد الرحمن علي سؤال بان كويدينا سؤال جوابتي هداد ku guuleysato waxa leedahay abaalmarin ka timid damal decoration oo qalabka isbaar baartiga baabuurta soo dejiya
barnaamijku kasoo ku jira su'aalo diiniya kuwa taariikhi iyo kuwa dhaqaneentaba markan waxaan ku weydiinayaa madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu dhintay 1995kii magaaladii ku geeriyoodan ka rabnaa iyo wadankii ahayd magaaladii ku geeriyooday magaalada ku geeriyooday Muqdisho ma idin aad u baansiyay Muqdisho waa lagu aasameedkiisa la keenay magaalada Lagos ee dadka Nigeria ayuu ku geeriyooday waa tahay daawadayaal wali barnaamijkan wuxuu bartan kaga jirnaa inaan ka maadilo joogo walaal goran magaca Caydarus Maxamed Xuseen Caydarus waxaad sheegtaa barnaamijka su'aalo dhaqan iyo diin iyo intaba taariikh isku dhex jiray markan su'aalo dhaqan aan ku weydiinayaa abwaanada Soomaalida abwaankii yiri inta kabtayda la tolaya nabad ka hadhay magaciisa waa Xawaan Xasan Shaqoomin aad u maasan yahay abwaan Cabdigaahir buu ahaa aad iyo aad u maasan waa tahay daawadayaal hadda inaan ka maadilo joogo walaal goran soo dhow barnaamijka su'aalaha rabdaantii weydiinay warcinaado magaca ku bilaabay waan ku soo dhawaay waad mahadsantihiin Radio TV magacaygu waxa weeye Cabdiwaasic Muuse Cabdillah Cabdillah waxaan ku weydiinaa barnaamijka su'aalo diin iyo kuwa dhaqan iyo kuwa taariikh intaba isku jiraaye markan su'aal diin aan ku weydiinayaa toddobada samada ugu sareysa magaceedan ka rabnaa waxa la yiraahdaa hadaan isku dayo samada ugu sareysa waxa la dhahaa arshi waxa la dhahaa waxa la dhahaa arshim aad u maasan isku day daawaas laakiin kuma guuleysan samada toddoba samada ugu sareysa waa rafiica aad iyo aad u maasan tahay daawadayaal barnaamijka habeenkan caawa waxa maalgeliya Damal Decoration oo soo dejiya qalabka isbaabartiga decorationka baabuurta lagu qurxiyo hadda kan baylo jooga walaal gorin barnaamijka soo dhawaada magaca ku bilaabay magacayga waxa la Mawlid Barkad Boof Mawlid waxa ku weydiinaa barnaamijka su'aalo taariikhi kuwa diiniya kuwa dhaqaneenta baa isku jiray markan su'aal taariikhi aan ku weydiinayaa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland magaciisa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland madaxweynihii ugu horeeyay Cabdiraxmaan aad u maasan daawadaasi waxa uu noqday uu ku guuleystay su'aashaasi jawaabteeda aan weydiinay Cabdiraxmaan Tuur baa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland hadda waxaan guddoonsin doonaa abaalmarin uu bixiyay Damal Decoration oo soo dejiya qalabka isbaalbaartiga ugu horeyn dareenka ka hormala mul dareenkaygu aad iyo aad baan soo dhaweynayaa su'aalaha wado Radio TV iyo groupkan maalgeliyay Damal Decoration waan soo dhaweynayaa su'aashan ku guuleystay aad iyo aad baan u faraxsanahay u maasan yahay Mawlid hadda waxaan guddoonsin doonaa abaalmarintaas ka timid Damal Decoration waa tahay daawadayaal abaalmarinta hadda aanu guddoonsinayna kaasi waxa bixiyay Damal Decoration oo soo dejiya qalabka isbaalbaartiga baabuurta aad iyo aad maasata walaal gulba horajin daawadayaal barnaamijkeena ayaan wali dhexbartan kaga jirnaa habeenkan caawa maalgeliya Damal Decoration oo soo dejiya qalabka isbaalbaartiga baabuurta haddana kamala joogo walaal goran magaca Aftaax Ilmi Cismaan Aftaax su'aal baan ku weydiinaa su'aasha jawaabteeda haddaad asiibto waxaad helaysaa abaalmarin ka timid Damal Decoration barnaamijku wuxuu isku jiraa su'aalo diiniya kuwa taariikhi iyo kuwa dhaqaneentaba markan waxaan ku weydiinayaa su'aal diiniya malaku jibril rasuulkana wuxuu ku yiri dadka inay naarta galaan dad buu ku yiri naarta galaan aamiin rasuulkuna aamiin buu yiri marka dadkaasi bulshada may ku dhex jiraan dadka inaad noo dhamaysataan doonaa ayahan dadkaasi aw malaku jibril rasuulka ku yiri aamiin naarta lagu fogayo rasuulkuna yiri aamiin wuxuu ahaa qofka waxay nabiga meesha iyagoo la igu salinaya qofka igu salin waaya iyo ninka bisha Ramadaan u soo gasho maxay ahaydeen loo dambi dhaafi waayo iyo maxay ahaydeen su'aasha saddexaad ma waa tahay daawadayaal jawaabteena kaasi waxaan ka rabnay inuu saddex qaybood noo sheego ah qofka bir Ramadaan u soo gashay inaan ka faa'iideysan iyo qofka saliga nabiga agtiisa lagu saleeyay inaan soo ku saliin labada uu sheegay saddexaad waxa weeyaan qofka caasi waalideen ka saddexdaas inuu israaciyaan ka rabnay soo abaalmarinta u guuleysto laakiin se kuma guuleysan aad iyo aad maasay waa tahay walaal ugu horeyn barnaamijka su'aalaha weydiinay warcelin Radio TV ku soo dhawaada magaca ku bilaabaya Cabdiraxmaan Maxamed Ibrahim walaal Cabdiraxmaan waxaan ku weydiinayaa barnaamijku wuxuu isku jiraa su'aalo taariikhi iyo kuwa diin iyo kuwa dhaqan intaba markan waxaan ku weydiinayaa su'aalo taariikhi ah wadanka Nigeria oo wadan Afrika kamid ah wadamada waliba ugu waaweyn buu ku jiraa caasimadda wadanka Nigeria ka raba caasimadda wadanka Nigeria wadanka Nigeria Bichimba aad u maasan yahay waa Abuja ayaa la dhahaa caasimadda Nigeria aad iyo aad u maasan waxaad sheegtaa saxaabiga weyn ee Abu Hurayra xadiisida uu soo wariyay inta saxiixa tiradooda صحيح Abu Hurayra inta uu wariyay xadiisida kumsa saxiix سجن aad u maasan yahay 2762 xadiis baa saxiixa wad maasanta
tahay daawadayaal weli barnaamijkan waxaan bartankiisa mushaaxinaya habeenkan caawa wax maal geliyay damal decoration oo soo dejiyay qalabka isbaarbaartiga baabuurta walaal ugu horreyn ku soo dhaw barnaamijka aad magacaaga ku bilaabaya kamarda ismaciil sharmaarko barnaamijku wuxuu ku jiraa su'aalo taariikhi iyo kuwa diiniya kuwa dhaqaneedba marka su'aal taariikhi aan ku weydiinaya madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre magaaladii lagu aasay meel Itoobiya kamid aad u maasan yahay garbaar iyo Soomaaliya kamid lagu aasay waa maasan waa tahay daawadayaal barnaamijku dhaxbartankiisa aynu weli ku guda jirnaa habeenkan caawa wax maal geliyay damal decoration barnaamijku wuxuu ku jiraa su'aalo diiniya kuwa taariikhi iyo kuwa dhaqaneedba barnaamijku waxaan soo codsiinaynaa Axmed Daacada hadeena kameel jooga walaal ugu horreyn ku soo dhaw barnaamijka aad magacaaga ku bilaabaya waa ku dhawahay walaal magacayga waxa la dhahaa Cali Nuur Cumar Siyaad waad mahadsantahay Cali Nuur waxaan ku weydiinayaa عليه الصلاة والسلام الرسول كان سنة كيو جريودي قبل دي فاطمة بنت الرسول مسلسل أي كده مسيد جريود نعم عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت الرسول سؤال شاهد دي أنا سكوت ضيّه ولو أنا عند نيون عادي أنت سكوت فعلاً ده أنا سكوت ضيّه سنة كي جريو وعي كده بيسي تضرب سنة عادو ما سيا اللي حبلوده كلية كده بيسي سنة بمي جارين وما واسع داود يا البرنامج كجنتي قبدي من السوق قارني هذا إنك ماله شغل ولا الكسور برنامج كسالار بدأ أنت ودينا ورعنا هذا مقعكم بلابي كده ولا المقعد قاس برخة فرع ولا الواحد ودينا أمريكان سؤاله يحسبون شلون ديني رقم إيه تاريخ انتبه مركم واحد ودينا يا سؤال إن رقنا روادي شبل ناقود مريم ملصنية عبد الله راقي مقعدكم مثلية فني عادو ما سني واحد كل متنين لبضا مقاعد كلا شبل يشلايو ودنا سنت واتاي داود يا برنامج كان ولي كوغدا جيرنaa hada waxa la joogan ka adar gorin soo dhaw barnaamijka aad magaca ku bilaabay magacayga Cabdinaasir Aadan Saalba la yiraahdo waan dhawahay Cabdinaasir waxaan ku weydiinaa barnaamijka su'aalo taariikhi kuwa dhaqana intaba waa isku jira markan waxaan ku weydiinayaa in su'aal dhaqana waxaad ii sheegtaa ruwaadii Shabel Naagood magacyada Cabdilla Raage iyo Maryam Mursal dadkii metelay bay ka qayb hayeen magacyadii ku metelay waxay ku metelayeen magacyada horta ruwaadda waxa sameeyay Xasan Sheekh Muumba sameeyay Shabel Naagood laakiinse Maryam Mursal iyo Cabdilla Raage waxay ku metelayeen dawo bukootay iyo dab dhaxmooday ما يتعمق وما سنياي وحيا شبيل يا شلايو أدم ما سنت. تاي داود يا الجنتي قبل برنامج كنا هبين كان عاوا سؤال ودينا ورعنا إنه كوسس قناية هذا إنك ما يلوش شوقا ولا لقورن صدق برنامج كذا ما يعاقب لابي. دقيق مسلم جسا. ولا الواحد يشكتها برنامج سؤال تاريخي كودينيا. دولة دي صوماليا تن ما أنت فرماتشو قاميتي يكون رسالة حسن شق مدحوينها كاها. واحد صومري صدق رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يقول ريم عيسى. عبد الرشيد. عادو ما سي عبد الرشيد كيو قدام بيجيبوها ساعد باكي كوبادا كلا عبد الولي بها واد ما سنت واتا داود يا gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay ka qayb galiyo ugu dambeeyay hadii la jooga walaal gorin barnaamijka soo dhawaada magacaaga bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga walaal waa Cabdi Khadar Cabdi Saaqo waxaan ku weydiinayaa wadanka Algeria waa wadan ku yaala qaaradda Afrika madaxweynihiisa dhawaan buu saxsilay 20 sano wadanka soo xukumayay magaca madaxweynaha ka raba madaxweynaha Algeria yaa hadda saxsilay ما قرني والله عادو ما سي عبد العزيز بوتفليق ايوها وما سنت واتاي داود القبيان intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenu su'aalaha rabadaanta weydiinay warcelino habeenkan caawa u maal galiyay damal decoration oo soo dejiyay qalabka isbaar baartiga baabuurta lagu qurxiyo barnaamijka waxaad ka daawanaysaa telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV anigu Axmed Daacad la socodsiinaya dhinaca kamarada iyo habeynta iyo isku soo dubaridka barnaamijku waa injineer Sakariya Saxane intaan barnaamijkan mar labaad dib u kulmi doono dhamaanta ee Raya TV damal decoration waxaad ka tagnaa asaasi assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shaqalka quruxda laayne shan udageyso gaadhiyo naxliga xumoor ku sheeliyo sharaarad balaga siifeeyo shaqalka quruxda laayne shan udageyso gaadhiyo naxliga xumoor ku sheeliyo sharaarad balaga siifeeyo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca looga dhigayo shidada aakhiro dhibkeediyo qiyaamahano shaqalka quruxda laayne shan udageyso gaadhiyo naxliga xumoor ku sheeliyo
balaga sifeeyo shaqalka quruxdan lahayne shaanshaan udagiisu gaadhiyo naxliga xumoor ku sheeliyo sharaara balaga sifeeyo rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaaca